tartan dhinaca kubadda cagta ah oo bisha barakeysanay isla markaana lagu qabtay degmada Gacan Libaax soo qabanqaabiyeen ururka dhalinyarada ee magaciisa loo yaqaan tala wadaag laguna xuseeyay mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani ka tirsan ay dhawaan xukuumadda Soomaaliland ay xabsiga u taxaabtay ee hadda la soo daayay xorriyadoodii dib loogu soo celiyay ayaa waxa lagu qabtay degmadaasi waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani ugu horeyna waxa daafurka tartankaasi hadal ka soo jeediyay qaar ka tirsan dhalinyaradii ururka tala wadaag ee soo qaban qaabisay tartankani waxa weeyaan xukuumadda kulmiye malaa dhalinyarta waxay ugu tala gashay badhna inay tahriibaan badhna inay xabsiga ku dhameystaan cimrigooda hadda mas'uuliyiinta halka ku xiran mushkiladda ugu waxa weeyaan mas'uuliyiin maxay tahay xasaanad bay leeyihiin xisbi bay ka tirsan yihiin waxa weeyaan annaga marka mas'uul dhalinyartayada firfircoon ee ugu hore mas'uuliyiinta ah maxay hayteen la xidhiidho waxaan u arkaynaa in dhalinyarta la cuburinayo waxaan u sheegaynaa xukuumadda Maxamed Axmed Xamuud Silaayo iyo xisbiga xaakinkaba jeelku yaanu idinka buuxsamin waxa weeyaan dhalinyarta heer Soomaaliland siday u dhantahay isbedel baan doonaynaa isbedel caafimaad qabaanu doonaynaa waxa naga sala si aanu garoonaan ku ciyaarno weynay xisbiga wadanina waxaanu ka filaynaa inuu noloshii asaasiga ahayd ee isboortiga haday tahay waxa weeyaan garoomadii iyo baahiyaha aanu u dooranayno in ay maxay hayteen ay noo fuliyaan dhalinyarada in ay ka qayb qaataan wareegga tartanka ciyaaraha oo horumarkiisa iyo horseedkiisa lagala doonayo in midnimo uu dhalo iyo isdhexgal gabagabadii munaasabadaasina waxaa soo gunaanaday qaar ka tirsan mas'uuliyiin sarsare oo kamid ah xisbiga mucaaradka wadani kelmad mahadnaq oo dhalinyarada soo qaban qaabisay halkan ka yiraahdo wad mahadsantihiin annagoo ku hadlayna afkii xisbiga afkii musharaxa xisbiga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi ayaan leenahay aad baad mahadsantihiin shaqada fiican aad qabateen aad baan ugu hambaleynayaa dhalinyarada annaguna waanu garab taaganahay haddaanu nahay xisbiga wadani dhalinyarada aad baan u danaynaynaa horumarkooda iyo inay ku nagaadaan wadankooda waxaan rajaynaynaa insha Allah taala inuu xisbiga wadani wax ka bedeli doono dhalinyarada Soomaaliland waxaan u sheegaynaa inaan niyad jabin isbedelka dhowna uu yahay isbedelkii dhalinyarada Soomaaliland aqalka caafimaad qaba wuxuu ku jira jid caafimaad qaba marka taaseenu sameeynaa taasa muhiima mar labaad dhammaan dadka waan salaamayaa dadweynaha ka soo qayb galay waxaan idin rajaynayaa dhammaan guul عبد الرشيد عبد الوهاب حسين يونيفرسال TV Hargeysa